markiise axad eebbahay inuu uma uu damcado wuxuu u unkaa samays dhigaa orka lagu maqliyo dareen uriyaha sankiyo afkeenniya koodadkiyo indhaha iyo daamankiyo saablaydiyo uurka iyo labada addin iyo gacmaha astaan dhadig iyo labo intaasoo suuraysan baa ilaahay nafta u gashaa carruurtana oohintaa rabbayo uga dhigay afgarad oy ogaataa hooyadii inuu intifaacsi rabo ee soomaaliya heladaa kolkaada shahaadataa rabbiga uu ka dhigay islaam shanteenna arkaanta iyo lixdeenna iimaanka iyo maxay aayaduhu dhaheen ilaahay uuna faray xadiisyadu aamineen rasuulkeennuna akibay aqoon waad leedahay intaa maad ku camal fashaan berigii asxaabihii udgoonow nebiga yaga kuwii inkiree kufiyey qoonkii abujahal lahaa kolkay in la dilo xugmeen adeeradii lagaga baqay ibliiska yimid shirkii ardaaba 5 wiil ka madha idaylmaadu wada dishaan markuu arrintii ku daray kolkii aqbalkii ku dhacay kolkay aqalkii tageen kolkay sayid cali arkeen yidhaahdeen maxamed aaway kolkuu yidhi maanan arag kolkay raadkii aryeen abakor iyo nebigayagu kolkay godka aamineen abeesadii guurtayee abakor rubta raamsatee ilmada kululee ka timid inuu aakuru yidhaa adkaysiga uu ka baday ogaaday rasuulkayagu abeesadii tuurayee abakor gacantii marsheen ilaahu caafi yidhi ibliiskii jiray markaa ogaada inaanu dhiman inaada shahaadataan maxaad ku ilowsantihiin inaydin is-aamintaan maxaad ku ilowsantihiin islaamnimadiiyo sharciga maxaad ku ilowsantihiin ilaahay in laga cabsado maxaad ku ilowsantihiin ee wuxuu yidhi ilaahay addoonkayga kii dhiba adduunkiisa kii dhaca ka dheera agtay wuxuu yidhi ilaahay 14 boqolkaan anigu dhigay aayadaha tirada guud 4 jeer laba rogay ka akhriyaan ku camal falin imtixaankii wuu dhacay wuxuu yidhi ilaahay ruux haddaan ifka u dayn udgoonow rasuulkaan ka tageen adduunyada wuxuu yidhi ilaahay ina aad mitala xume qalbigiinna ooda ah ingeganayn qoyayn baa idin seejin aakhiro ma idaa sulsilad baad arkaysaan maqlaysaan oon idiin akhriyayaa rabbigiinni baan ahay awxaalahaa idhi in yar iyo in badan buu ma ilaaba qoray ee ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaan adigaa awood leh oon cid kale amar ka yeelayn aakhiriya adduunkana adaa yeesha idilkooda iqra' waxay u timid inay bartaan aadamaha nool waxaana alifka badan loogu daray waa umuur culus akhrina waxaad rasuulka ugu tidhi waa farriin adag kamaad qarin addoommada inaad eebbahood tahaye allaahu akbar ilaahu adaa wood